munaasabadan oo ay ku qalin jibinayeen in ka badan 800 arday oo dhameysatay kuleedaha kala duwan ee jaamacadda caalamiga ah ee Somali International University SIU heerka koowaad ee bachelor degree-ga oo uu soo qaban qaabiyay maamulka jaamacadda ayna ka soo qayb galeen ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xildhibaano labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya aqoon-yahano maamulka jaamacadda waalidiin ardayda dhameysatay waxbarashada iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah ardayda dhameysatay heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda SIU iyo qaar ka mid ah waalidiinta oo ka soo qayb galay munaasabada ayaa ka hadlay muhiimadda waxbarashada ay leedahay magacaygu waa Sacdiye Cabdullaahi Maxamed waxaan ka tirsanahay ardayda ka qalin jabinayda jaamacadda caalamiga ee SIU kuliyaddan ka baxay waa Health Science Department-geedu waa General Nursing xaqiiqatan aad iyo aad aan u faraxsanahay lama soo koobi karo farxadeyda bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Axmed Nuure waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda SIU maanta ka qalin bedelatay class of 2021 waxaan aad ugu faraxsanahay maanta halkaan soo gaaro waxaan u hambalyeeynayaa ardayda ila qalin jabisay ee class 2021 waxaan leeyahay hambaliyo horay u socda gudoomiyaha golaha sare ee jaamacadda SIU Saciid Cabdi Xuseen ayaa ka warbixiyay doorka jaamacadda SIU ay ka qaadanayso sare u qaadida waxbarashada sare ee dalka xafladan waa xaflad marxaati ah waxay marxaati ka tahay dadaalkii ay jaamacadda SIU soo waday ay maaragtay horumarinta mujtamaca dhinaca waxbarashada ay ka hormarinaysay waa xaflad muujinaysa dadaalkaas baaxadda uu leeyahay ardada maanta qalin jabinaysa ee meeshan fadhidana qayb ay ayaguna ka ahaayeenoo haddii aynan ayagu qaybtooda ama doorkooda ka cayaarin sidaan quruxda badan wayna dhacdeen wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabiri ayaa sheegay in jaamacadda SIU ay ka mid tahay jaamacadaha ka soo gudbay tijaabada ay sameysay wasaaradda waxbarashada wuxuuna kula dardaarmay ardaydu inay sii wataan waxbarashadooda SIU waxay ka mid tahay jaamacadihii ka gudbay qiimeyntii wasaaradda waxbarashada oo aan sameynay ولينا waxaa socda qiimeyntii jaamacadaha kale ee dalka laakiin runtii waxaan rabaa inaan halkan ka cadeyno waxa ay ku jireen jaamacadahaas waxaan maanta ku faraxsanahay sharafna noo ah inaan aragnay arday intaan la eg oo runtii dhameysatay kulliyada kala duwan ee takhasusaad inay ka qalin jabiyeen waxaan rabaa marka inaan marka hore u hambaliyeeyo maamulka jaamacadda oo u horeeyo gudoomiyaha boardka iyo gudoomiyaha howlfulinta jaamacadda amiidyada ama horumaryada kulliyadaha iyo macallimiinta wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Cumar Al-Cadaala ayaa kula dardaarmay ardayda dhameysatay waxbarashada heerka koowaad inay sii wataan waxbarashadooda waxaan leeyahay hambalyo aqoonta aad barateen Ilaahay ka dhigo midaad qoysaskiina iyo qarankiina intaba ku anfacdaan oo dadka dalka Soomaaliyeed aad wax ku soo kordhisaan inta ka sokow runtii aad ayaa looga hadlay halkan ahmiyadda ay waxbarashadu leedahay isku tilmaami mayno waqtiga aan ku jirno waad garan kartaan waqti adag oo wadankeenu uu dhismayo oo aan la hardamayno in aan dib u qaabayno mustaqbalkeena iyo qarannimadeena ayaan ku jirnaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa ku booriyay ardayda dhameysatay waxbarashada inay la yimaadaan hal abuur waxtar u leh dalka iyo dadka ardaygu markuu qalin jabiyo iyo sideedaba qofka dhalinyarada ah waxa ugu weyn ee qofka mas'uulka ah uu ku tilmaami kara waxa weeye fariinta dal jacaylka iyo wadaniyadda dalkani wuu jiray maantana wuu jiraa berrina wuu jirayaa maalin walbana waxa ka mas'uula dadka camiran ee ku nool sida ay ugu noolaadaan sida ay ugu shaqeeyaan sida ay wax ugu soo saaraan iyo sida ugu wada noolaadaan mas'uuliyaddaas generationka ku nool xilliga saaran wadankan inaga leh ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ka soo qayb galay munaasabada ayaa hambalyo u diray ardayda dhameysatay waxbarashada iyo waalidiinta ardayda wuxuuna ku booriyay ardaydu inay ka shaqeeyaan horumarinta dawlad wanaaga isla markaana ay la yimaadaan hal abuur ugu horeyn
waxaan u hambalyeynayaa ardayda maanta ay geedigii ay soo mareen ee waxbarasho heerkiisii koowaad uu gabagabada yahay oo aynu u dabaaldegayno. waxaan u hambalyeynayaa mar labaad waalidiinta ku soo tabcay ee dadaalka la soo garab taagnaa. waxaa kaloon u hambalyeynayaa macallimiinta iyo maamulka jaamacadda oo iyaguna dadaalkaas weyn soo muujiyey. maantana midhihii ama maxsuulkii ka soo baxay halkan aynu u wada joogno. muuse cismaan abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.